qarax ee mas'uuliyadiisu ay sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab ayaa lagu dhuftay hotel Afrika ee magaalada Muqdisho iyadoona saqdii dhexe ee xalay qaraxaasi la soo afjaray dad caan ah oo uu ku jiro General Galaal ayaa qaraxaasi ku nafwaayay taariikhda General Galaal ayaa daawadayaal idiin soo gudbin doona inta aynu ku guda jirno barnaamij wareedkeena waxyaabihii ugu dambeeyay ee qaraxaasi ku saabsan iyo madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble oo qaraxaasi ka hadlay ayaan idiin soo gudbin doona daawadayaal fadlan muuqaalkan like saar lana wadaaga saxaabtaada si aan u helno saaxiibo fara badan oo adiga oo kale waan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso fadlan ku soo dhawaada qodobadii hordhaca daawateen oo intaasi ka sii faahfaahsan waxaana ku bilaabayaa waxa xalay saqdii dhexe la soo afjaray weerarkii lagu qaaday hotel Afrika ee magaalada Muqdisho booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in saacado dheer ay qaadatay soo afjaridda weerarkani isla markaana uu khasaaro ka dhashay afayeenka booliiska Soomaaliyeed Sadiq Aadan Cali oo markaasi sheegay in weerarkaasi ay ku dhinteen 9 qof oo ku jiraan raggii weerarka soo qaaday ayaa la hadlay warbaahinta Sadiq ayaa sidoo kale sheegay in weerarkan ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 10 qof dadka caanka ah ee weerarkan ku dhintay waxaa kamid ah General Maxamed Nuur Galaal afayeenka booliiska ayaa sheegay in sababta weerarka waqtiga dheer uu qaatay ay tahay in ay badbaadinayeen markii hore dadkii halkaasi ku go'doonsanaa sababta waqtiga intaasi la dhan uu noogu qaatay ayaa ahaa marka hore dadkii ku jira hotelka oo inta badan ahaa dad u soo casariyo tagay inaan ka badbaadino argagixisada kadibna markaasi aan soo afjarno weerarka ayuu yiri weerarka ayaa sida ay booliisku sheegeen markii hore ku bilaabmay gaari lagu qarxiyay ilinka hotelka laga galo kadibna waxa gudaha u daatay rag hubeysan mas'uuliyadda weerarka ayaa waxa sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab oo inta ugu badan ba qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorsheysan ka fuliya koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya weerarkan ayaa ku soo beegmaya xilli muddooyinkii u dambeeyay aysan magaalada Muqdisho ka dhicin weerarada noocan oo kale ah waxa sidoo kale weerarkan ku soo beegmaya xilli meel xasaasi ah marayso doorashada lagu wado inay ka dhacdo dalka Soomaaliya dhanka kale weerarkan waxa ka tacsiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kale qaar ka tirsan ama inta ugu badan ba musharaxiinta mucaaradka ee xildoonka una taagan inay jagada madaxtinimo ay ka tuuraan madaxweynaha iminka ka arrimiya fila Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddaynu soo qaadano taariikh nololeedkiisii General Maxamed Nuur Galaal oo kamid ahaa saraakiishii ku waxyeelooday ama ku dhimatay qaraxii cashalay ay markaasi dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ka fuliyeen hotel Afrika ee Muqdisho General Maxamed Nuur Galaal waxa uu ku dhashay meel u dhow magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud wuxuuna waxbarashadiisa asaasiga ku soo qaatay magaalada Muqdisho markii uu dhameeyay waxbarashada sanadkii 1957 waxa uu ku biiray booliiska Soomaaliya waxaana uu ku soo bartay college-kii Ferrari xilliga nidaamka daaqiliyada waxa uu ka howlgeli jiray saldhigga booliiska ee la oran jiray Oriental ee gobolka Banaadir halkaas oo ay ka soo wada shaqeeyeen Maxamed Siyaad Barre waxaana lagu qaatay laba alifle sida uu sheegay Dr. Maxamed Cali Kaboole oo ay soo wada shaqeeyeen General Galaal kana mid ah howlwadeenadii dawladii hore ee militariga markii la aasaasay militariga Soomaaliya 1960kii General Galaal waxa uu ku biiray ciidanka wuxuuna ka mid ahaa saraakiishii ugu horeysay 1960kii loo qaaday dalka Talyaaniga wuxuu dalka dib ugu soo laabtay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya ee 1964 isla sanadkaas wuxuu ka mid noqday saraakiil loo qaaday dalka Ruushka si ay ugu soo tababartaan waxaana lagu qaatay darajada xidigle Galaal oo waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu muddada dheereed ee ku soo tababaratay dalka Ruushka oo waxa uu dalkaasi ku maqnaa muddo 5 sano ah waxa la sheegaa in khibradiisa ugu badan ay ahayd sirdoonka dhanka militariga intii uu joogay dalka Ruushka wuxuu wax ku bartay akademiyada Voronezh wuxuuna bartay tacticada dagaalka howlgelinta ciidamada dagaalka dhuumaaleysiga iyo sidoo kale basaasnimada intaba waxa uu ku soo shaqeeyay magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Baydhabo oo uu joogay markii uu inqilaabka dhacay iyo beledweyne oo markii dambe ka soo shaqeeyay Maxamed Xaaji Ingiriis oo wax ka qoray taariikhda Galaal wuxuu sheegay inuu ka soo qayb qaatay dagaaladii sanadii 1964 iyo 1977 ee Soomaaliya la gashay Itoobiya dagaalkii 1977 kadib waxa la sheegay inuu ku biiray siyaasadda
waxaana mar uu soo noqday wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga oo uu ahaa intii u dhaxaysay 1977 ilaa 1980. wuxuu kaloo soo noqday wasiirkii howlaha guud intii u dhaxaysay 1980 ilaa 1982. sidoo kale dhanka baarlamaanka waxa uu ka soo qabtay xilal kala duwan oo ay ka mid yihiin xoghaayihii baarlamaanka, xoghaayihii guud ee golihii baarlamaanka iyo sidoo kale gudoomiyaha guddiga siyaasadda. markii uu dalka burburayay generaalka waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaankii xilligaasi jiray. maxamed xaaji ingiriis ayaa sidoo kale sheegay in generaal galaal uu ka mid ahaa raggii farakutiriska ahaa ee aqoonta durugsani u lahaa arrimaha ciidamada, waxa uuna markaasi magaca ku yeeshay dagaalkii 1977 oo sababta arrintaasi loo aaneeyay tababarkii uu ka soo qaatay ee dalka Ruushka. saacado kooban kadib ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho, waxaana markaasi janaasadiisa lagula duganayaa masaajidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho. guud ahaan daawadayaal waa inaga inta barnaamijyadeedkii aad ka daawanayseen channelkeena Zacamada Official. fadlan muuqaalkan like saar lana wadaaga saxaabtaada si ay saaxiibo fara badan ugu xirmaan channelkan. subscribe inoo saar, taasina waxay naga caawinaysaa inaan helno saaxiibo fara badan si ay uga faa'iideystaan macluumaadka aynu halkan soo gelin xilli kasta iyo saacad waliba. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawatay tan iyo warkan kiisa xigana inta dib isugu kulmi doono waxaan idinku dhaafay